laga yaabaa inaad ka xumaatid markaad aragtid ciyaal yaryar oo isku qayr tihiin isku da' tihiin oo nool noloshatii ugu dambaysay horey wax u xaqiijiyey yacni nolol wanaagsan ku nool adduunka meelahaas wada booqanaya safarro galgelaya muuqaalo qurqurux badan soo duudaya gawaari raaxada ku socda diyaarada raacaya adiguna aadan weli waxba qabsan laakiin dadka aad daawanaysaa isku da' tihiin ama xitaa adiguba aad ka weyn tahay laakiin iyagu ay ku nool yihiin nolosha tay rabeen adigana aadan ku noolayn tii aad rabtay ee aad daawado uun ka tahay kala socotid social mediahaas u kaadi haddaba ma dhihi karnaa nolosha ay ku nool yihiin waxaa ka fiican noloshaada ama ka fiicnaan doonta sidee yacni maxaa ka wadaa tusaale balan ku siiyo dadkii dunida soo maraya ugu khayr badnaa dabcan su-aasha waxaad kaga jawaabaysaa waa ambiyada nebiyadii ilaahay ayaa ugu khayr badnaa oo ma jirin cid ka khayr badneed ka wanaagsaneed ka sharaf badneed dadkaas ma iyagoo 15 sano jira 20 sano jira 25 sano jira ayaa nebinimada loo dhiibay mise iyagoo ka weyn oo cimrigooga ay gaadheen 40 sano jawaabtu waa 40 sano marka nebiyadaba haddii 40 sano ay nebiyo ku noqonayeen wax la noqdana ay nebinimo ugu sarrayso taa macneedu ma ka dhigan tahay guushu inay soo raagta ka fiican inay guushu soo dhaqsato oo adiga maadaama haddaadan weli waxba isla hayn oodan weli waxba xaqiijin hadhow waxaad noqon doonta ayaa ka fiicnaan doona waxaad hadda tahay almuhim haddaad ku wareerto waxaan ka wado aan ka soconno okay iska socotaad fahmin waxaan ka wado laakiin intaynaan muuqaalka usii gudagelin fadlan muuqaalka like saar sababtoo ah cashuurtu waa liketa okay dhiirigelintuna waa subscribe-ka ayaa sii sheergaraysidna waa madaxa ay saaran tahay aad u mahadsan koobkaaga shaa soo qabso ila daawo muuqaalka ilaa iminka haddii aad is leedahay guushaadii xagga ku maqan tahay wixii aad xaqiijin lahayd xaggay kaa tageen aawo noloshii wanaagsaneed ee khayrkaa ku noolaanayeen eed rabtay inaad noolaatid ha iloobin ilaahay inuu sikin kasta wax bedeli karo sikin inuu ilaahay wax ku bedeli karo oo uu daqiiqad wax ku bedeli karo sanadna maxaabad u malayn wax badaanayuu ilaahay ku bedeli karaa kow min sunan ilaahi ayay ka mid tahay inayna noloshaadu maanta sida ay tahay sanadkan dhammadkiisa ayna ahaanin wax badan ayaa isbedelaya cimrigaaga ayaa isbedelayooda weynaanaysaa dhararkaaga isbedelaya yacni wax kasta waa isbedelaya sidaad maanta tahay waa ballan inaadan ahaanin sanadkan dhammadkiisa oo dhinac kasta ood ka koraysaa caqligaad ka koraysaa iyo meelo kale oo fara badan aniga shakhsiyan waxaa inoo sheegayaa nafteedanaan u sheegayaa adigana aan kuu sheegayaa laba wadda mid ayuunbaa noo bannaan sanadkan inaan iskaga sii jirno comfort zonekan meesha aan hadda joogno sariirteenna aan ka daawarno dadkaa noloshooda nool dadkaa xaqiijiya waxyaabihii ay rabeen iyagoo yaryar innaguna aan laagta uun ku wargufno oon xaggaa kala soconno qalbigana aan ka nacno sababtoo ah waa ciyaal yaryaroo qayrkeena laakiin xaqiijiya waxyaabo badan cilmi bay barteen wan wanaagsan meelo sarsaraayay ka soo baxeen waa kuwa adduunka maraya innaguna aan bartaa taagno talabaadna waa inaan qaadno waddada adag oo ah waddada shaqada waddada samirka waddada dhexedhashada waddada dhabar adayga iyo waddada soo jeedka sidii aan u gaari lahayn meesha aan rabno kow cashirka koowaad ee muuqaalkan ka baranayna labadeennuba waa samirka okay waa inaan samirnaa si kastoo noloshu inoogu adag tahay duruufta u xun tahay aan zero u taagannahay waa inaan samirnaa yaqiinsanaana inaan ka gudbi doonno sababtoo ah inna maca alcusri yusra culays kasta waxaa ku xigaya fudayd ilaahay idankiisa okay lamana rabo inaan isku mashquulino waxyaaba inagu aynaan awood u lahayn waxyaaba aynaan shaqo ku lahayn dadka badana waxaad arkaysaa waxay ku leeyihin beritole say noqon doontaa toddobaadkani suu noqon doonaa bisha soo socota say noqon doontaa adiyaa waxaa kuu dirsaday maanta wanaaji beri iyada iswanaajinaysaya bilaa calayk wakhti ha iskaga luminin sidee beritole noqon doontaa ee maantadanaad adigu wakhtiga haysatid maba ogid inaad beri gaari doontide maanta wanaaj sababta oo la kaalay waafajintana ilaahay ku daa waxaanu leeyahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markii uu hijroonayay ee uu madiine usoo hijroonayo maka ka imaanayay wax kastaba uu soo qorshaystay waddadii uu aqali tawaqucaadka ama dhibaatooyinka ugu yaryar kala kulmi lahaa ayuu isiri waddadaa waa inaad qorshahaaga ugu jirtood martid dadka kii ugu aaminsanaa ee ugu kalsoonida badnaa ayuu soo kaxaystay yacni nebigu marka uu soo hijroonayay qorshe ayuu ku soo dhaqaaqay haddana markay godkii galeen ee ay quraysh u soo dhowaatay abubakar nebiga wuxuu ku idhi yaa rasuulallah mid ka mid ah dadkanina dul taagan haddii uu lugihiisa fiiriyo waa uu ina arki nebi maxamedna wuxuu ku jawaabay maa dannuka bithnaynin allahu thaalithuhum maxaa u malaynaysaa laba kooga saddexaadna uu ilaah yahay waxaa laga wadaa adiga la kaalay sababaha waafajinta iyo waxaas dhammaan ilaahay ku daa okay wixii lagaa rabay adiga markaad la kaalidid ood dhabar adeegtid ood samirtid oo shaqadii qabatid ood dadaashid waafajinta ilaahay ku daa wa an laysa lilinsaani ilaa maa saca wax aadan u shaqaysan wax aadan dhididka saa iskooga tirin ha ka yaabin inaad heshid waa aayad rabbaaniya qofkaan ka hadlaynay rafaadkaa maraya wax qorshaysanaya ee saa u cabsanaya godka kaga dhuumanaya gaaladan waa nebi maxamed si kasta waa uu heli karaa ilaahayow hadda igii ayuu dhihi karaa madiina isla daqiiqadaana waa la geen karaa sababtoo ah waa afdalulkhalq bini'aadanka dunida soo maray waa kii ugu khayr badnaa kii ugu horreeyey ilaa ka ugu dambeeya qofka ugu khayrka badan waa nebi maxamed haddana isaga ayaa sababihii la imanaya nebi maxamed adigoo miskiinkaa yare faarax iyo xaliimo ah innagoo sariirteena iska saaranayaan waxaa rabnaa wax kasta in fadhiga inoogu keeno taasna abadan ayay ka tag ma jiro cilmi inoogu imanaya innagoo sariirta saaran shaqo inoogu imanaysa
inagoo sariirta saaran xirfadaan ku baranay inagoo sariirta saaran yacni kelmaddii maxay ahayd annaciim laa yudrak binnaciim janno ku sug wax la dhaho ma jiraan marka mar hore ayaan su-aal ku weydiiyo ah laba waddan mid uun ayaa inoo furan labadii waddana waan kuu soo kala sheegay inaan comfort zonekeenna iskaga jirno oo dadkaa noloshooda nool aan meelaha ka daawanno marna aan u murugoonno marna aan u faraxno yacni aan makhraatiyaalka ahaano nolosha bini'aadan kale ama inaan nolosheenna noolaano oo the main characters noqonno oo waxa aan rabno inaan xaqiijinno haba yaraato ama ha weynaato ama ha dheeraato ama ha fogaato aan wax uun qabsanno oon fadhiga ka kacno kuma dhiirigelinaya okay igana leahow wax uun ayaan isku sheegaynaa nafteedaana u duubaya muuqaalkan si aan anigana iskugu canaanto adigana kugu canaanto you know what I'm saying hana iloobin qaacidada caanka ah ee ku taala buugga Atomic Habits buuggaas wuxuu idhi ka soo qaad haddii aad wanaajisid maalin kasta 1% ma og tahay sanadka dhammadkiisa inaad 37% ka fiicnaanaysa sidii aad ahayd waa run maalin kasta 1% haddii aad hagaajisid waa la hubaa meesha aad maanta taagan tahay 37% inaad kasii fiicnaanaysid marka ugu dambayn ilaah waxaan ka baryaynaa sanadkan inuu noqdo sanadkii meeniska aan geli lahayn sanadadii hore ina soo dhibay ina soo rafaadiyay sanadkii aan ku iloobi lahayn sanadkan xaqiijin lahayn waxyaabo ugu badan ee rabno si inoogu sii furmaan nolol wanaagsan oo qurux badan oo sharaf leh okay ugu dambayntiina waxaan ku leeyahay fa idaa cazamta fatawakkal cala allah tala saarashada iyo waafajintu waa xagga ilaahay adigana dadaalkii iyo wanaaggii iyo go'aan qaadashadii iyo shaqadii ayaa lagaa rabaa okay mar haddii aad xagga soo gaadho waxaan kaa rabaa inaad soo qortid waddada labaad okay sababtoo ah waddada labaad ayaa ah waddadii aan ku gaadhi lahayn meel fiican intaan ku kulmi doono muuqaalka xiga waxaan kaaga tagayaa